caynaasha inta badan waa khabiir ka faallooda arrimaha jacaylka aadna galangal ugu leh dhanka arrimaha bulshada haddii aan leedahay arrimaha jacaylka arrimaha qoyska barbaarinta ubadka waxyaaba waa nin waayo araga oo inta badan cilmi ahaan iyo waayo aragnimo intaba ku haysto waxna ka qoray inta badan arrimaha bulshada gaar ahaan qoysaska waxaa jirtay sheekooyin badan oo aad ka qortay arrimaha jacaylka qisooyin dhacay kuwa dhici doono oo maxnaa waxyaaba dhici kara sheekadii kugu xiisaha badneyd intii aad arrimaha jacaylka ku fooganayd ama bulshada dhexdeeda aad ka aruurinayso sheekooyinka sheekadii kugu xiisaha badneyd iyo sheekaas waxay ahayd sheekaha nafteeda igu dhacay adiga oo aniga caynaashe way muddo 6 sanadooda ayaan gabar jacayl hadda baabahdaan isku qaaday anaa nafteeda u qaaday markii ugu horreysay burcada isku dhawaatay burcada isku noqon ayaduna albaabo badan ay xiratay ana albaabo badan furtay wax ii soo galan ma hayo idin kudi xiray gabadha seminar day waa gabar macnaha ileysatay quruxdiisa simantu marka waa wixii anigu aan ula baxay waa tiicideed ula baxday ma macnaha nin walba mid dumar calmo way cudoonta way cudoon waa cumbar luula nawid waa cumbar luula ma sha Allah marka gabay baan jiray markaas anigu aan isri Allah ilaahay waxaad ku cabiri karto wax gabay ka jira albaabadu ku furmi karaan astag aadiya waxay marka simanay sidii seema rabo ama dhul soobaan baxsanay sidii baatirkeeda ama bukaar duugan dalaashay sidii dhayloada ama dhalaan wiil badda jaawle jaan kool laxwin jiliga cayl dheyn magaalooyinka lagu jimbaxay webiga jaahiisa kol dhaweyd markaan darisayn kuma dan weydiinay caawan digso ilo bal aan darajada eego waa anagii ahaan jirnay ul ciddu macnaha daris hore ahayn way hore waa anagii ahayn ul iyo diirkeedii macnaha taariikhda dib ugu celiyay macnaha si usoo gocato waa anagii ahaan jirnay waa anagii ahayn ul iyo diirkeedii waa anagii walaalana ahayn wacdana noo yeeli amaad walaalataa oo tira ku warramay maadaama hore albaabada uga xirnaayeen maxaa dhacay kadib deedna horta dadka waxaa la yidhaahdaa meesha waxay iska ahayd meel xoogaa iska gobol oo hadda muqdisho iyo eeriidaan ahayn dadkaasuna xagga gabayada waa la qiimeeya macnaha suugaanta lagu hadli jiray waayo xilligaasi ma jirin ilaaha noo furay albaabkii suugaantaa furtay oo furno gabadhaas xaggii ku dambeysay gabadha hadda way joogtaa duwaashidaaba maasha Allah isku waaraan leeyahay inta cimrigiina ka dhiman waa qiso run ahaantii la yaab leh wayn aad u tiro badneed waan la soo koobi karin meesha jacaylkaasi kasoo bilowday iyo maanta heerkuu taagan yahay is leedahay waa wax buug in laga horo ay mudneed aad iyo aad bugaag macnaha bugaag waxaa isbarbardhig ku samaysaa jacaylkii xilligaas jiray ee taleefan jirin uusan jirin maxay ahayto isgaarsiintan internetka oo fudud oo qofkii asoo gurigiisa jiifa aa leedahay xaaladda ka waran waxaasoo dhan ma jirin bal magaalooyinka yaa waxaa ka jirta xilligii hore warqad la isku diro qof loo dhiibo baadiyaha markii loo baxo maba jirin marka jacaylkii xilligaas iyo ka maanta markaad miisaan saarto yaad is leedahay miro dhalkiisu isjecnaa miyaha waxaan is leeyahay iskumana dhow jacaylkii hore yani dadka isjeclaada waaba isheli jireen sida badan kala taguna wuu yaraa macnaha waxa weeyaa marka horena waa usoo dhimanay haddaa usoo dhimatana waa heli jirta hadda ayadana u dhimanayna waa iska helay ayadana la isku dheefsanana waa la kala tegay marka wax isku dhow maahan absolutely jacaylkii hore wuxuu ahaa jacayl sax ma is leedaha marka jacaylkii uu qiimo jabay kalsoonidii xilligaa la isku qabana meesha way ka baxay horta jacaylka ma qiimo jibin saa anigu aaminsana laakiin waxaan is leeyahay dadkii yaa qiimo jabay muhiimadda intaas akraa sababta waxa jiilka xilligaas joogo waxay aaminsanaayeen iyo jiilka hadda jooga waxay aaminsan yihiin ama sidii wax u rabaan waayahay maxaad is leedahay xilligaasi jacaylkii jiray wuu adkaa tiirar adag u lahaa micnaha dhadhanna wuu lahaa kana aad u jilicsan yahay farqiga marka u dhaxeeya ee kaasna adkeeyay kana jilciyay haddaad sharaxaad ka bixiso aragtidaada ninka waxaan u arkaa
ninku gabar markuu dooranayo ama uu jeclaanayo ama uu xitaa haminayo waagii hore wuxuu ku hamin jiray arrimo la taaban karo 1 iyo 2 tusaale gabadha muuqaalkeeda laguma fiirsan jirin laguma raadsan jirin dadkeeda dadnimada ayadu waxay geli karto tusaale gabar laga yaabo adoo 10 nin wata inaad u timaado cidoodii ay saayado hooyo aaba ka ahayn oo gabar ka ta hooyan aabana maqan yihiin inaad u soo martida laga yaabo mid way ka hooyanaysaa waxba kuma siinayso midna inta ariga dhex gasho neefka ugu saxsan waxay dhahaan way loogtay marka waxa duntaas macnaha moogtaa waxa weeyaan meesha la iska qaadaho baag indiga ma furanta indiga ma aha waa baag indiga يعني قفك دونتا كدن بيد ضد أهانتيس هل إسكو قاعدين معناها ضد نمديدا إيه حتى هدي أيضا ضد نمديدا أوكي نقطة هو أي تهدنا به يأوجد يسيء هاجري لا توصل لي قانا معناها واحد جرتي شمال هذا مركز أنك أفضل شمالي باكر دونتا قفك دونتا اللي هتنجري مد كلنا ويجرتيو أتكين جرتو حكمي ده أدو أحمر راس وهو مركز ربطو إنا حاجة جعل آرها نقبر آرها تدو هذا عينان شيء كاسو بشدونتي حتى هدد قبل إسكو حماتان وتسكيه السنة يساعدوا إلى اللي ستونت عينان شو معنى؟ معناها إيو بريكا مالين قبل عن تصيرتك كإيمانك كإيمانك مركا مرور بوحي إهد سومالي دو وحي إسكو بورسو دونتا إسكو هيسا هذا الدون إسكو ما هيستي موقال معناها لدى الآن لدى الآن أساسه أوكي عادي waxaa jira dad badan oo aaminsan in hadda jacaylka uu ka leeyahay dhanka dumarka bulshada qaarna waxay aaminsan yihiin dhanka ragga inuu ka leeyahay inta badan marka in wax socon waayaan ragga iyo dumarka waad ku dhex jirtaa jacaylka maanta aan ka hadlayna yaa u badan asalaad niyow anigu waxaan dhihi lahaa anoo qofna ka eexanaynin qofna way xanaynin gabdhaha ayaa xaggooda wax ka leeyahay sababtana haddaan sii raaciyo gabdhuhu ma oga xaaladda guriga looga maqan yahay waxay rabtaa inay maqribkii la yimaado qaarkeedu ku dagaalamaysaa gurigiina ku dumaan laga yaabo adoon waxba kala ku maqnayn waxa laga yaabaa xilligaas inaad gacmaha maskaxda ka dhidisan tahay ood shaqo ku dhidisan tahay ood ayadii iyo ilmihiidii iyo carruurtii iyo wixii laga yaabo teleefanadii soo wacaysa inaad qaban weyso sida hadda marka qaar dhacayso waxaa marka arrintaas waxa bundhigu ah dumarka oo badana aflaamaha iyo fiirsanayaan san anigu iyo inta badan arrimo khiyaali u badan oo social media yani wax waaye wax ay meelo kale ka arkeen inta badan oo ayaga qof ahaanteedaba aysan xitaa qaadan lahayn laakiin intay meelo kale ka aragtay la qurxonaa ayaa u soo waxaan dhihi lahaa waxaa leedahay marka reality-gii gurigaan u dhisnaa waa laga tegi ninku kama tegi sababto tahay subaxii oo baxaya shaqo u aadaay waxa shaqadii markuu soo baxay inuu isira shaqadan $400 ka soo gashay mid kale oo 2 saacadood dambe inuu ku dirsan xilligaas asoo ku jira qorsheyntii inay ayadiiba u aragto ninkaan dad kale oo sameysanayo marka arrintaas waxaan leeyahay xagga dumar walaas waxa ka jira dumar waxaan dhihi lahaa maxaad ugu baaqaysaa marka gabdho badan oo daawanaya rasmi horta in badan waxaan isleeyahay dumar badan waxa laga yaabaa inay ka xumaadaan barnaamijka marka arkaan isdhahaan adinka linku ataagaya laakiin si gurigeedu u dhismo keenana u dhisnaa ayaa muhiimadda waxaan saaraynaa wixii khiyaaliga inta la iska duubo waxa runta taha lagu dhaqmo macnaha waxa ugu muhiimsan qofka bini'aadamka uu ku siin karo waa talo aad iyo aad taladaas waa wax weyn tusaale gabdhuhu hadda markay rabaan inay reer dudumiyaan ama ay xaalada dareemaan xitaa markay in la maseero horta waa wax diini sababtoo nabiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa مسير جري أصير واحد يسمعه يجري والله إني لخيور والله أغير مني إله بقى يقصي مسير بدن أنا وحنا هاي مسير له مركو على واحد أضمن سيره واحد دين تنوقشة أخلاق تنوقشة عقلي السليم كهونا قاعدين كرينا دنتا عن بربورين دنتا يغيرك ينهد لما تافتان هو بس يعني قيلات وحنا إيه لا يقبلوا مسير مسير كنا هبط لكن مت 6 ميلاد هشيس لها نو دنتا غيرك وعن دمين دينتا iyo dhaqanka suuban ee Soomaalidu leedahay ragana waxaad maadaama aan dumarkii dardaaran siisay aadiya sidoo kale ragga maxaad siinaysaa raggu hal meel ayaa waxaan ogahay inta badan
culays ugu badan inuu ragga soo galo waxaa lagu eedeeyaa inay gabadhii shalay jacayl ay kusoo raacday ay u timid ay sidii jacaylkii markii guri la yimaado dumarku waxay ku eedeeyaan wuu isbedelaa inta badan isbedelkana sida hadda qaybta hore kusoo sharaxday shaqadaas iyo duruufahaasaa keenaya waxaa laga yaabaa in gabadhii ayadoo usoo sabirtaba tusaalaba aan masayrin dhibaato kale aan sameynin inuu berri markuu dhaqaale helo ninkii oo daydaygiisu bato uu hore u baxo marka ninkii reerkiisa isku dhaqdo kii horena wanaajiya kana wanaajiya nin ay dhahaan balse ninka reerkii hore inta ka taga mid cusub waqti gelinaya lagana yaabo asiga laftigiisa in uu noqdo waxaa soomaalida ugu yeerta I love you party tii xaragoonaysa inuu yiraahdo tanaa leh oo tii hore iloobo rag saasa waa jiraan maxaa kula talin lahayd iyo horta talada aan ragga kula tali lahaa way ka badan tahay midda dumar kula badan macnaha raggu maadaama la yiri gabdhuhu way kooban yihiin arrimahan kula talin lahaa laakiin ragga arrimahan kula talin lahaa aad u ballaaran wax yar aan kusoo koobi doonaa marka kulay marar kale ayaan ka hadli doonaa danaan number 1 horta raggu way guursan doonaan waxaana la yiraahdaa ninku markuu guursanayo xaas muhiimaddu ma ahan inay xaaskan ugu dambayso tusaale xaaska markaad guursanayso waxay ku xiran tahay baahida aad u qabto baahida waxaad u qabtaa horta caruur ma cuntada iyo dhaqdhaqidda iyo isku toosinta iyo feereynta iyo ninnimada aad u eg tahay aqalloocatood rabtaa qofka toosida hagaasin oo u baahan waxaad u baahan tahay xagga dareenkii iyo dee maxaa la noolaashii miyada ugu baahan waxa horta tiradaa ka batay oo kala duwan oo aan la soo koobi karin ayaa la isku guursadaa nin abwaanuna waa kee yiri ma ogtahay mid baa quruxda loo guursadaa laguna goobtaay midna gunuudda ay hoosato kaa galaa damace midna magaca qoyskay gashay guurka ku mudatahay midna waxa geeyaanka ka dhiga garasho diinidu intaa marka diintu way hadalka waa diintu waa soo koobtay iyo gabaygu way ka badan yihiin wax loo gooban karo macnaha ugu dambeyn gabaygu wuxuu leeyahay geelow mid gaar ah oo tan u gadaalayso si gaar ah diinta taas oo kula talina marka waxaan leeyahay haddii aad niyahow heshid gabadhii awal baahidii aad qabtay aad u guursatay dabooshayna haddii ilaahay oo mid kale aad u hanqal taagtid ayadoo qoslaysa macnaha tu kala raadi baahidii labaad haddii ayadu xalli weysa macnaha ilmina waxaa laga yaabaa inaad ilmo u guursato ilmihii ilaahay kaa siiyey macnaha laakiin midda waxaa u baahan tahay xoogaa dheeroo taaganoo aad rabto inaad la socoto macnaha wixii shalay aad u timid wax ka baxsan yaad u baahatay waxaan dhihi lahaa marka tii hore wanaaji oo qanacsan oo qoslaysa tan kale baahida kale gudub ee hayso dul saaran tii horena ha xumayna in la gursana dee waa wax diiniyan waa wax diintu banaynayso waayo diintu halkama bilaabo aad iyo midna hoosaa loo soo wadi markii dambe marka waxaa la yidhi haddii aadan awoodin hal ku gaabso marka muhiimaddu waa in reeraha dhaqan iyo kuwa hadda guurdoonka ah in macaamilo wanaagsan lagu macaamilo canaashe kama bogan karno waxa ku jira waxay noqonaysaa inaa waqtiyo badan caawa booqashu noogu yimid sidaasaan ku qabanay laakiin asagoo usoo qasday mawduucyo badan ay u diyaarsan yihiin waa rajeynaynaa in halkaan aan idiin soo fariisan doono canaashe waa kaaga mahad celinayna booqashada noogu timid tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lamida waa Axmed Raas iyo Bahdi Raas Media sidaas nabadgelyo.